shirkeena jaraa'idna wuxuu ku saabsan yahay dacwad maxkamadda sare ee dalka aan u gudbinay marka waa idin akhrin doonaa maaragtay sida aan briefing aan idinkugu talagalnay du'aal yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim sida la socotaan 22kii bishii September 2019 wafdi ka tirsan xisbiga himilo qaran oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Ahmed xildhibaano uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi iyo xubno kale oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga ayaa hor istaag aan sharciga waafaqsaneyn lagu sameeyay diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada Kismaayo haddaba iyadoo laga duulayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed dhowrista sareynta sharciga dalkeena u yaala xurmada muwaadiniinta xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xilliye adag soo hogaamisay oo waxa uu xisbiga himilo qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii hor istaag ahaa lagu sameeyay wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed oo safar shaqo ugu socdeen caasimadda ku meel gaarka ah gobolka maamul goboleedka Jubbaland Kismaayo arintaas oo aan u aragno ku tumasho shuruucda dalkeena u yaala gaar ahaan qodobada hoos ku xusan qodobka 10aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha qodobka 21aad oo ka hadlaya xurriyadda isu socodka iyo degitaanka qodobka 33aad oo ka hadlaya go'aanada maamulka qodobka 7aad oo ka hadlaya xasaanada xildhibaanada gabagabo xisbiga himilo qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh in aan helno cadaalad sharciga dalka qofna kama sareeyo waa maasantiin